casharkan wuxuu ugu horeeyaa dhowr cashar oo aynu ku eegayno sales processka sida aad waxaa kambanigaaga ama businesskaagu iibinaya aad QuickBooks-ka ugu kolgarayn lahayd. casharkan ugu horeeya waxaynu ku eegaynaa ka ugu fudud oo ah sida cash sales aad u samayn lahayd. cash sales waxaynu uga jeednaa tusaale ahaan qofku intuu meherada soo galo oo uu alaabtii kaa qaato lacagtana ku siiyo, taasaynu cash sales uga jeednaa. waxaad tegaysaa home windowgii baan taaganahay, create sales receipts baad tegaysaa, markaad kala garayso macmiilkii baad halkan kasoo dooranaysaa. tusaale ahaan aad wax ka iibinaysay kasoo qaado kale inuu ADO yahay, ADO halkan haddaan la dooran macmiilka aanad informationkiisa wadagelin waad bixinaysaa. waxaan uga jeedaa aanad macmiilka informationkiisa wadagelin. macaamiisheena iminkaas kale markaynu eegno waad arkaysaa kan layd si full profile baynu usoo gelinay markaynu soo sameynay, laakiin kan oo kale waxa weeye full profile umaynaa soo sameyn. halkan hadhow oran doona miyaad update garaynaysaa. halkaas waxa weeye waa waxaanu sameynay. halkan waxaad kasoo dooranaysaa customerkii baad kasoo dooranaysaa aad wax ka iibinaysay. okay, halkan waxa weeye waa date-kii aad wax iibinaysay. haddii date-kaa uu doortay aanu ahayn date-ka saxda baad dooranaysaa. waa iibkii inoogu horreeyay inuu sameyno, markaas sales number 1 buu inooga bilaabo, invoice-keeni number 1 buu inooga bilaabay, laakiin waad bedeli kartaa. 2001 baan invoice-keyga ka bilaabanayaa maadaama uu waxa weeye lacag aan ka qabanayo. halkan reference baan u baahanahay. haddaan check kaga qabanayo halkan waxa weeye waa check numberkii. haddaan saad kaga qabanayo halkan waa saad reference-kii. haddaan cash kaga qabanayo halkan waa receipt voucher-kii. kasoo qaad inaan check kaga qabanayno halkan ay check numberkii una rabnaa, checkii ay inoo qoreen numberkiisa. halkan wixii aad iibinaysay baad kasoo dooranaysaa. bal kasoo qaad waxaan ka iibiyey xabad desktop computera. okay, hal xabo iyo xabad laptop computera oo taabtoo shigada ah. hadana waxaan ka iibiyey hal xabo. okay, labada xabee computeree kala duwan ayaan ka iibiyey. midna waa 500, midna waa 800. waad aragtaa totalkaygii halkan uu ku qoray 1300. halkan memo ayaan ku qoran karaa memorandum. cash sales made to ADO ayaan ku qoran karaa wax muhiim adiga ku ah oo informative oo hadhow ku xasuusi kara. halkan customer message baa ku taalla. waxa weeye message waad raacin kartaa. aad doonayso hadhow invoice-kaaga inay ka muuqato it's been pleasure working with you oo kale. tusaale ahaan message-ka la soo wada customize garayn kartaa. halkan new baa ku taallo. waa new haddaan idhaahno iminka waxaan oran karnaa waad ku mahadsan tahay inaad dukaankeega wax ka gadato ayaan oran karnaa. okay, waad ku mahadsan tahay dukaankeega inaad wax ka gadato. yani message waa optional oo message-ku ma aha requirement, laakiin waa aad raacin karto customer messages. halkan to be printed iyo to be email ayaa kugu yaalla. haddaad doonayso inaad email ugu dirto iyo haddaad doonayso inaad printer garayso. marka iminka waynu printer garaynaa to be printed-ka inoo ahaato. actually intaan u baahanay si aan cash sales u sameeyo waa intaa. haddaan iska xirayo save and close baan odhanayaa. haddaan mid kala doonayo inaan sameeyana save and new baan odhanayaa. markaan save and close baan odhanaa. ADO bill address-koodaad bedeshay miyaa lagu save garaynayaa? yes baan leeyahay. sidaa waxaa nagu dhan sidii aad cash saleska ugu samayn lahayd QuickBooks-ka adoo isticmaalaya.